بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين maanta oo ay bishu tahay 15 oo maalin sabti ah waxa aan joognaa magaalada Boorama gaar ahaan area-da airport-ka ama mataarka markaasi magaalada Boorama waxa aan halkan ku qaybinanaa cunto iyo raashin kala duwan oo u qaybinana dadka markaasi danyarta ah ee saboolka ay waxba haysan oo kala loo qaybiyo halkan isku yimid sida markaas halkan muuqata waxa markaasi taagan gawaaridii rogasay markaasi cuntada raashigina waa la qaybiyay dadkiina markaasi waxa ku soo jiraan ku yuugan marka insha Allah taala halkan waxaan ku qaybinanaa 1,000 qoys oo raashina oo mid kasta uu qaadanayo half daqiiqa half bariisa iyo half sankora xabad saliida kartoon timira iyo caano laba caana marka insha Allah taala waxa weeyaan musaacada ka tirsan dadka loogu talagalay dadka ku tabaaloobay abaaraha waana dufcadii koowaad insha Allah taala hay'adda masno iyadoo markaasi ka soo qaaday an-nadwa al-caalamiya lishabaab oo hay'ad weyn markaasi Sacuudiga ah oo markii koowaad ay masno ku qaybisana maaha waxa weey marar hore biyo dhaamintii iyo cuntooyin hore ay ugu qaybsan markaasi gobolka ayaa jiray marka insha Allah taala waxaan rajaynaynaa markaasi barasaabka gobolka Axmed Xadi oo si fiican markaasi u maareeyay arintan iyo aad u mahadnaqnaa dhammaan mas'uuliyiinta gobolka aan u mahadnaqnaa waxaan rajaynaynaa in ay sii socoto caawimadan iyo dadka Ilaahayna subhanahu wa ta'ala waxaan dadka uga rajaynaynaa in uu ka soo furto abaaraha iyo baahiyaha uu in ummadda Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka yeelo kuwa barwaaqaysan oo bani aadamka baahidiisa ka maarma hadii la hayra marka tan markaasi wax badan qaban maysan laakiin waxaan isnay waa wax ku filan karo qofka bil waliba ay ku jiraan maadooyinkii muhiimka ah sida timirta caanaha iyo saliida ee qofka nafaqada iyo markaasi u taraya dadka aad u liita marka aad iyo aad marka ugu maadnaqnaa hay'adda soo gudbisay anaguna insha Allah taala waxaan ku dadaalanaa bal in gobolada Soomaaliland oo dhan aan kolba gaarsiino wixii ay aan kari karnay markaas uga soo helo markaas umada wajazaakumullahu khayran wadana waxaan ugu baaqanaa inay iska hashato aad baan idinku mahadnaqayaa shukran مذكرك قبلك سكوجرا مدحدا هذا مصنع مسؤولين تكلا قبلك يدق مدى شعب وينها صلادين تا عقاشة دتك فؤاد فربنا هل كسوق العلماء ذا وحن مركو ريد كسلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مركل بعد وحا halkan imika hadal dheer ugu ma bixin waxa kaliya oo aan halkan ugu baxayna inuu mahadnaqo hay'adaha caalamiga iyo khayriyaadka ee ka soo jawaabay baaqi aan u jeediyay oo aan ku hadlay afka gobolkan Awdal hay'adaha hore way jireen laakiin maanta hay'adda raashin ilaa hadda intii aan gobolka joogay raashinka ugu badnaa keentay waxa weeyaan hay'adda masna aad iyo aad yaan ugu mahadnaqayaa madaxdeeda shaqaalaheega dhan walba iyagoo ka soo ajiibay yani baaqi aan u baaqnay baahida ay ummadda reer Awdal qabto oo ka soo gaadhay abaarihii iyo roob la'aantii iyo dhibaatooyinka marka waxaan leeyahay ilaahay khayr iyo xasanaad idinka siiyo idinka inta aad u keenteenna ilaahay ha u barakeeyo oo ha u badiyo wax gaari kara maaha waa xawayaan inkastoo yani meel ay ka soo baxday kun ay tahay haddana waxa Soomaalidu tiraahdaa beer geel biri baabaysay waxa weeyaan ummad aad u fara badan baa baahan oo gobolka joogta waxa maanta waxay noqonaysaa drop on the ocean waa dhibic roob oo badweyn ku dhacday weeyaan iyo inta ku noqonaysaa marka ilaahay haydka jazaaysiyo waxaan jecelahay in idaan saan ugu deynay aad soo wadaan khayrkaasina aad idinku badsataan ummadda reer Awdal waxaan leeyahay wax 4 baabuur 5 baabuur lagu keenay nama deeqaane waxa weyn kolba intii ilaahay u qoray ayaa qaadanaysa idinkuna isku saamaxa oo isku haneeya
inta kalena haddii ilaahay yidhaahdo haddaad isku hanaysaan oo aad ilaahay ugu mahadnaqdaan ilaahay wuu inoo siyaadinayaa walaalaheen buu inoo maxayday maaragtay inoo sakhirayaa cuntooyin badan oo kale ay noo iman doonta idinkuna isku haneeya oo hanaaya dhaxa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحدا halkan joogtay sharafta leh iyo dadweynaha halkan jooga intuba aad iyo aad bay u mahadsan yihiin aniga oo gobolka u metelaya hay'adda masno waajibaadkii ummadda ka saareyd run ahaantii way isku dayeen inay maaragtay inta ay ka qaban kareen ka qabtaan iyaga oo hay'adaha caalamiga ah la hoos ordaya dhibaatada waddanka ka taagan iyo abaaraha saameeyay waana wax ilaahay loogu mahadiyo subxaanahu wa tacaala iyada oo maanta yacni waa markii koowaad oo raashin intaa la eg lagu qaybiyo gobolka waa la mahadi wey marka waxaan leenahay kulley hay'adda masna marnaba ma moogana dadkeeda waxaa laga yaabaa marar dambena inay maaragtay wax kala keento ayaa maaragtaa aan rajaynaynaa bulshada reer Booramana waxaan leenahay kulley waxaa idinka idin sharafa oo idin fiican kolba intii wax loo helay ayaa la siin inta kale inay buuq xisaabma maaragtay sida uu barasaabkuba u tilmaamay marka waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadkan ka soo qayb galay iyo ragga maaragtaa masna u shaqeeyay ee maaragtaa dariiqa u soo maray ee raashinka maaragtaa u soo qoondeeyay gobolka wabillahi tawfiiq wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in باوركي معيش برضه باور عصبوت وراي محمد يا سر طلع حاتم مي ابراهيم بقى هيا باوركي معيش برضه باور عصبوت وراي محمد يا سر طلع حاتم مي ابراهيم بقى هيا